waxaa yimid baarlamaan inuu wax shabadeeyo keliya u joogo inuu wax shabadeeyo in wax laga doodo oo wax la sharciyeeyo wax la nidaamiyo qodob la dejiyo aan u joogine baarlamaan iyo xukuumad dhammaantood ku milmay madaxweynihii joogay runtii haddii arrintaas aan wax yar kor istaago baarlamaanka Soomaaliyeed waxa aad kow burburka lagu bilaabay maalintii gudoomiyihii hore Jawaari la isku dayay in laga buriyo maartay gudoomka oo dawladda hore ay bilowday dawladdaana si fiican ay u dhameystirtay baarlamaankii si fiican ay maartay ula wareegtay wuxuu noqday meel taleefanka madaxtooyada laga xukumo ayuu noqday bulshada rayidka ah nafteeda dhibaatay qabaan waxyaabahaas oo dhan keenay in mar walba oo dib ay arkaan dadka Soomaalida inay shir isugu yimaadaan oo ay ka tashtaan war marxaladda noocaan ma ku day karnaa bas waa ku fiirsanaa shirkaasi marka waxa uu ka hadlayay shirweynaha isugu nimid sidii madaxweynaha maanta jooga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa iyo inta asaga maanta waxa uu suubinay u sacbinayso in la yiraahdo ka jooga wada sax ma ahan waa wadada insha Allah madaxweynuhu ka baqaylisay jidka ka soo istaagtay oo adiga diiday annagoo garbahaaga taagan oo kula socon diiday markii shirkaani ma aha qor in la qaadanayo madaxweynaha maanta waa uu hadlay waxa uu ka hadlay shirkaani rag badan oo annaga aan ka mid nahay oo Muqdisho ka soo baxo Kismaayo soo aad uu ka hadlay waxaan rabaa su'aaluna weydiiyo wuxuu yiri waxa idinku soo degi waayay jasiira hadaa joogteen oo Kismaayo ku soo degay maxay yihiin jawaab kale aniga ma jawaabta madaxweynaha asaga uu bixiyay maanta uu Kismaayo yimid oo maanta Facebook la soo dhigay aan mar idin akhrina madaxweynaha raaliga ahaado jawaabtiisa inaan ka cudur daarto inaan soo qaato madaxweynaha wuxuu yiri fursad ay Jubbaland caasimad ku meel gaarka ee magaalada Kismaayo inay isugu yimaadaan dad badan oo siyaasiyiin ah oo hogaamiyaal ah oo siyaasadda Soomaaliya talo ku leh cod ku leh danaynayana jecelna dalkan iyo mas'uuliyadda ay ka saaran tahay bari inay u qabtaan rabo inay u tashadaan iyadu waxayna rabaan inay ogaadaan dadka Soomaaliyeed waxaan ku tashanayno wanaag Soomaaliya waay horumarka Soomaaliya waay deganaanshaha iyo nabadda Soomaaliya waay su'aasha maanta madaxweynaha oo weydiin rageena xamar ka soo baxay asaga hore u bixiyay madaxweynaha asaga bixiyay jawaabtiisa anaga noo ah jawaab jazaahu Allahu khayran aad u maasay raalna aad jawaabtiisa soo qaatay madaxweynaha waxa uu yiri raga Kismaayo sugu tagay waxa ay diiday waa la yaqaanaa waxa ay rabaan ma la yaqaanaa madaxweynaha asaga ka jawaab hadda koor asoo madaxweynihii hore la hadlay kaliya waxaan rabaa inuu raali ahaado in hadalkiisa soo qaato oo asaga aan u akhriyo hadalkiisa maxaa dhaqa xuquuqda oo hadalka asaga iska leh hadalka asaga aniga ma dhihin madaxweynaha wuxuu yiri Maxamed Cabdullaahi wuxuuna kala doorasiinaa laba shay oo kala doorasiinaa inuu hubiyo doorasho oo hubo asaga inuu meesha ku joogayo inuu meesha iska sii joogo inuu asaga ku soo baxayo hubo inuu asaga iska sii joogo mana yeelayno yiri madaxweynaha waxaan rabaa madaxweynuhu doorashada qof iyo codka leedahay oo halka xisbi oo isku qaybshay Karaama iyo Ramaas iyo JSB waa hal xisbi waa hal xarako waa hal itijaah waa ognahay waana ka xumahay itijaahaadka islaamiga qaarkood inay maanta shahaado zuur ay ka qayb galayaan oo doorashada maanta ka dhacaysa magaalada Muqdisho la sheegay waxaan aragnaa inay tahay wax oo shahaado zuura oo beena inay ka qayb galaan ma ahayn qof u nasab sheeganaya rasaa'ilka islaamka ama uu shacabka Soomaaliyeed oo raalaha walaalkay adaa yiri ma aragtay waa ina hadashaa marka waxaan rabaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gacanta anaga hum soo qaadayno man u yeelayno dadka Soomaaliyeed hum la isku soo qaato kaliya bayaanka waa aragteen asna waa dhageystay waxaan rabnaa madaxweyne inuu fadhis ugu keeno aan ka hadalno doorasho asaguna iyo shacabka Soomaaliyeed qof walba u aragto inay tahay doorasho xor ah oo xalaal ah oo raali iskaga wada yahay waana tii annaga iyo asagaba markaan Kismaayo imaanayna u nimid marka xamar joognayna aan jasiira ka wada hadlaynay tii ayaan hadda socoto waana mahadsantahay raali hadalna waqtiga ka qaato